in ka badan 20 ruux oo shacab ah ayaa dhimatay kadib duqeyn ay dawladda Suuriya oo garab ka helaysa wadanka Ruushka ay wali ka wada waqooyi galbeed dalkaasi Suuriya. weeraradii ugu dambeeyay ee ka dhacay waqooyi galbeed ee dalkaasi gaar ahaan gobolka Idlib ayaa imaanaya xilli qaramada midoobay ay quwadaha caalamka ku eedeysay wax ka qabasho la'aanta burburka iyo dhiigga ku daadanaya wadanka Suuriya. hal bil oo ay duqeymo xoogan ka wadeen dawladaha Suuriya iyo Ruushka goobihii ugu dambeeyay ee ku sugnaayeen filaagooyinka dawladda ka soo horjeeda ayaa waxa ku dhintay 229 ruux halka in ka badan 700 oo ruux oo kalena ay ku dhaawacmeen. 9 caruur ah ayaa kamid ah 21 ruux oo ku dhintay duqeymo ay dawladda Suuriya ka fulisay dhowr magaalo oo hoostaga gobolka Idlib iyo baadiyaha Xalab sida uu shaaciyay ururka la socodka dagaalka Suuriya oo fadhigiisu yahay wadanka Ingiriiska. gobolka Idlib iyo qaybo kamid ah gobolka Xalab ayaa wali ku jira gacan ku haynta Hayat Tahrir al-Sham oo horay uga tirsanaa urur weynaha al-Qaacida. inta badan wadanka Suuriya waxaa ka jira colaado sokeeya oo u dhaxeeya urur diimeed iyo dawladda. sidoo kale dawladda Suuriya ayaa gacan weyn ka helaysa wadanka Ruushka oo quwadda adduunka ugu weyn ku jira. shacabka ku nool dalka Suuriya ayaa wajahaya caqabadihii ugu badnaa abid kuwaasoo duqeymo cirka kala kulmaya dawladda Suuriya iyo wadanka Ruushka.